wiilkan qabriga dhinac jiifa wuxuu tagay xabaasha hooyadiis si uu ugu soo duceeyo allana dambi dhaaf ugu weydiiyo hooyadiis ka geeriyootay wuxuuna horay u soo qaatay kutub quraan si uu ugu dul akhriyo xabaasha hooyadiis ay ku aasan tahay. hal mar waxaa isbedelay dareenka qalbigiisa isagoona ilinta cishan waayey dareenkiisana xakameyn kari waayey ayuu xabaasha hooyadiis ku dul dhacay isagoo ilinta ka socota sida isagoo hooyadiis ay dul taagan tahay oo kale. ha dhaafin muuqaalkan adigoo u duceen hooyadan geeriyootay iyo hooyo kasta oo muslimad ahayd taas oo geeriyootay. rabbow dhammaan hooyooyinka muslimiinta ah ee geeriyooday hoygooda ka yeel jannada kuna arsaaq mid ka mid a beeraha jannada.